أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خليفة عبد القادر معالي النور، قدومية مؤسسة معالي النور، وزير دولة فدرالكا، حildhibaanada sharafta leh, culamaa udiinka, ugaas maxamuud cali ugaas, maamulkii gobolka banaadir, dhammaan marti sharafta leh, baxda saxaafada, waxaa idin salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaam kadib, waxaan markii hore rabaa inaan aad iyo aad u mahadceliyo gudoomiyaha mu'asasa macalin nuur, khaliifkay marna adeerkay cabdiqaadir macalin nuur, oo noo qabanqaabiya munaasabadan aanu xuseyno aabahayni iyo gudoomiyaheena cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer riiso iyo howlwadeenihii gobolka banaadir oo ka geeriyoodeen qaraxii 24 Julaay 2019 xarunta dowladda hoose muqdisho. maanta saad ogtihiin waa sanad guuridii koowaad ee qaraxii xarunta gobolka banaadir. waxaan mar walba ilaahay ka barinayaa inuu jannatul firdaws ku waraabiyo gudoomiyaheena iyo walaalaheena ee ku geeriyoodeen iyaga oo howl qaran wadeen. intaas ka sigow, waxay ahayd maalin xanuun badan oo ilaa hadda aan murugaysannahay, laakiin ilaahay baa naga jeclaa. wuxuu ahaa qof daacad oo mar walba dalkiisa iyo dadkiisa u adeegayay. waxa uu lahaa tilmaamaha laga raba qarannimada mustaqbalka. waxuu ahaa wadani. waxuu ahaa aamin aan ku shaqayn musuq maasuq. waxuu ahaa halyey qaran. sidoo kale waxaa rabaa inaan fareen u gaarsiiyo maamulkii iyo shaqaalihii gobolka banaadir. waxaad tihiin shaqaalaha muraayada dalka. mas-uuliyad weyn baa idin saaran inaad magicii iyo maamuuskii aabaheeno iyo gudoomiyaheeno xoojisaan, inaad horumarkii caasimada la gaarsiiyo sida ay noqoto caasimad la tartan karta magaalooyinkii adduunka, iyo inaad riyooyinkii iyo ahdaafkii iyo hamnigii injineer riiso sii wataan. intaas kadib, waxaa rabaa inaa uu mahad celiyo madaxdii sare oo hogaaminaya madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo, dadaalka iyo juhdiga uu ku bixi marxuumka raximahullahu tacaala. sidoo kale waxaa rabaa inaa uu mahad celiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo mar walba i garab istaagayo. waxaan sidoo kale rabaa inaa uu mahadnaqo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha marwa khadiijo. waxay ahayd sidaad ogtihiin mas-uulkii ugu horeeyo oo noo soo daweysa garaankii magaalada Doha markuu aaba hosbitaalka ku jira. waxay ahayd mas-uulkii ugu horeeyo oo noo imid garoonka magaalada muqdisho maalintii janaasada. sidoo kale waxay ahayd mas-uulkii ugu horeeyo oo noo soo daweysa airportkii magaalada Amsterdam ee Yurub markii aan ka qayb galayna tartankii Engineer Riiso Cup. tartanka waxaa ka qayb gashay ku dhawaan 15 kooxood oo kala yimid wadamada Yurub iyo Asia. waxaanu mahad celinayaa haweenkii gobolka banaadir oo mar walba maamuusayaan gudoomiyaheena, allahu naxariiso. waxaan si gaara u mahad celinayaa gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka banaadir basma jiketi, la taliyaha gudoomiyaha gobolka banaadir ee duqa magaalada muqdisho bakiin maahi macalin, iyo gudoomiyaha degmada warta nabada zaynab, iyo gudoomiyaha ururka haweenka jawaahir barqab. sidaad ogtihiin, haweenka waa halbowlayaasha waddanka. ilaahay idin sharfo mar walba. waxaanu mahad celinayaa una mahadnaqayaa ugaas maxamuud cali ugaas oo dadaal badan u geliya qoyskeena iyo ahalkeena. ugu dambeyn, waxaan ku jirnaa maalmihii barakaysan oo dulxija. waxaan ilaahay ka barinayaa inuu ducadeeno iyo salaadeeno iyo sadaqadeeno naga aqbalo. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.